السلام عليكم marka hore waan islaamay dhamaan asxaabta ku xiran channelka waaniga waa Cabdul Ibrahim fiidiyogeenan uu ka duwan yahay fiidiyoga hore uga barateen channelka waxaana baran doontaa afar application oo inaba caadi ahayn channelkan waxa ku martiya saaxiibada kala ah SomTT channel Islamic app iyo Bio production haddaba channeladan linkiyada waxaan soo dhigayaa xagga hoose description-ka ama comment-iga ugu horeeya fadlan booqo hana ilaawina sarti subscribe application keena koowaad magaciisu waa wallpaper modder application kan faa'iidadiisu waxay tahay inaad qurxin kartid sawirka shaashadaada ku saaran ama wallpaper-ka haddaba soo furo application-ka wuxuu kugu soo baxayaa sidan kabacdi waxaad taabanaysaa falaadhahaas ayaad marba dhinac u jiidaysaa si aad wax uga bedeshid ama aad u qurxisid haddii ay ku qanacsi si aad u qurxisay wallpaper-ka ama shaashada mobilka sawirka saaran waxaad taabanaysaa halkaas saxdaas ayaa taabanaysaa kabacdi aan soo eegno waaw aragsan shaashadii ama wallpaper-ka wax iska bedeleen haddii aan ku noqono taago hooseysa oo ah blurrer haddii aad rabtid inaad shucaaca ku badisid ama aad gelisid shucaaca sawirka wallpaper-ka kabacdi sax waaw waad arkaysaa hadda shucaaca inoo gal haddaba haddii aad ka heshay application-kan fadlan soo dejiso app-keena labaad waa application-ka lagu magacaabo Momento app-kan ayaa kuu sahlaya inaad mobilkaaga ku samaysato GIF ama muuqaalada loo yaqaano GIF ugu horreyntii waxaad soo furanaysaa app-ka haddaba app-ka sidan ay kuu soo furmi doonaa halkan wuxuu ku leeyahay u ogolow inaan waxyaaban aksi ugu sameyno allow ayaad leedahay haddaba app-ka sidan ay kuu soo furmi doonaa marka uu sidan kuu soo furmo halkan wuxuu kuu tusayaa dhammaan muuqaaladii iyo sawiradii ku jiray mobilkaaga tusaale ahaan video aad doonaysid inaad qayb ka mid ah videogaas aad ka dhigto GIF ayaad dooranaysaa halkan waxaad u jeedaa inuu si automatic ah uga dhigay GIF tusaale ahaan frame-kan ayaan dooranaynaa halkan waxaad u jeedaa inuu muuqaalkiisa automatic ah uga dhigay GIF halkan speed ay ku qoran haddii aan taabano halkan waxaad ku badinaysaa speed-ka haddii aan halkaas geyno waxaad u jeedaa in si xoog badan amba si dhaqsi ah oo u dhaqaaqa halkan haddii aan halkaas geyno si culeysa ayuu noqonayaa halkan ayaan geyn doonaa marka dhan ayaan leenahay sidoo kale halkan direction-ka waxaad ka dhigaysaa bounce iyo loop iyo reverse midkaad rabto ayaad ka dhigaysaa kadib dhan ayaad leedahay haddaba kadib save ayaad leedahay halkan ayuu keeni doonaa wuxuu ku leeyahay qaab GIF ah ama kuu save garanaynaa mise qaab video ahaan waxaan dooranaynaa markaas GIF halkan waan ka bixinaa hadda waxaan soo furanaynaa gallery-ga telefonkeena halkan waxaad ugu jeedaa inuu muuqaalkii oo inooga dhigay GIF balse app-kan wuxuu ku xun yahay inuu wato logo tusaale halkan waxaad ugu jeedaa Momento waxaan filayaa inaad ka hesheen app-kan application-ka saddexaad waa Hypocam waa application oo aad sawiradaada ugu dhigi karto black and white waa application aan caadi ahayn laba qaab ayaad sawiradaada ku hagaajin kartaa mid aad hadda iska qaaday iyo mid aad hore iskaga qaaday hadda waxaan soo dooranaynaa mid aan hore iskaga qaadnay isla markiiba wuxuu noqday black and white wax badan ayaad ka bedeli kartaa sawirka adigoo intaan dhan adeegsanayo markaad dhamayso waxaad taabanaysaa sawirka kadib meeshaan kadib save application-ka afaraad waa vimage maxaad saari kartaa sawirahaaga ayaad dib u soo nooleyn kartaa mise wax nool ayaad saari kartaa oo dhaqaaqayo aan ku tuso walaal qaabka loo saaro sida hadda sawirkan kaaga muuqato soo ma artid shaas yacnaha waa qiiq ayaa ka kacay sidoo kale marka walaal sawirka ayaad wax nool ka dhigi kartaa marka walaal start aad ku dhufanaysaa marka start aad ku dhufatid maasha ay liista taabanaysaa calaamadaas balasta gallery-ga aad ka soo baxsanaysaa sawirkaaga haddaad maasha walaal sawirkaaga ka arkin halkaas aad imaanaysaa gallery aad si toos u aadaysaa marka walaal hadda sawirkan ayaan tusaale ahaan uga soo qaadanaya kaas aad ku dhufani
markaan ku dhufto sawirka waa diyaar. haddaa artid brightness aad ku dari kartaa 15 waxaalaan kala walaa waa ku dari kartaa, balse hadda muhiimadana waa sawirka inaan noolaynaa rabno wax nool saarno. marka hadda walaal tusaale ahaan taas oo kale rabo inaan saaro, waad ku dhufanaysaa next aad leedahay. waa hagaag wakaa walaal waad save garin kartaa. maxaad dhigi kartaa save to gallery, yacni gallery si toos kugu galaya. gallery ayuu si toos kugu galaa halka, mise Instagram-ka ay si toos u dhigi kartaa. marka save to gallery aad leedahay.